bishatani waa bil aan rabno laba wax inaan helo kow in ilaahay dembigaaga dhaafo hadda maaha inaynu iyada dembi kororsanno dadka qaar baa bishatan musalsalaad iyo balaa bishii uu dembiga hore iska rogi lahaa mid cusub bilaaba ma aha bil uu qofka bini aadamka ay kaslaan noqdo bilaad marna hurudown marna ma aha waa bil qofka muslimka ay ijtihaad ku jiro waa qofka muslimka ay waa bil uu dadaalkiisa xadkii kama dambaystaha isku dayay inuu gaarsiiyo muxuu rabaa in ilaahay dembiga ka maydho wuxuu rabaa ajar inta ugu badan leh inuu shaqaysto wuxuu rabaa inuu ku biiro min cutaqaa'ih kuwa ilaahay naarta ka xoreynaya habeen walba naarta badh baa laga xoreeyaa bishatan oo dhan wadaaka fi kulli layla buu nabigu yidhi habeen walba ummadda muslimka qayb ka mid ah naarta laga xoreeya inaad u dadaasho sidii aad ugu biiri lahayd kuwa naarta laga xoreeyey waxay yidhahdaan culammadu bishatani waa shahrun litakhyiir gebigeedba waa sistamkaaga nololeed oo dhan inaad dib u hufto balaan cusub inaad degto acmaal gaaraa jirta uu bishan inoo sii tilmaamay waa kuwa ugu culus ee traininka lagu qaato traininada ugu culus kow de isagu waa ramadaan waa wada garanay iyada in la soomayo waa garanay waxyaabaha ugu culus ee bishan la qabto waxaa ka mid ah nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa bishuu malakul jibriil qur-aanka la daraasayn jiray malakul jibriil baa u yimaada nabi maxamed iyo malakul jibriil baa waxay daraaseeyaan kitaabka alle ilaahay hadalkiisa idan bishatani bay culammadu yidhaahdaan waa bilu qofka muslimkii u xidhxidho inuu ku tadabburo ilaahay kitaabkiisa oo fahmo ilaahay muxuu nolosha ka rabaa idan bishatani waa bilu qofka muslimkii u xidhxidho warbal ilaahay warkiisa faham horta rabbi waxa uu kuu sheegayo rabu الsamaawaati wاlard ayaa adiga kula hadlaya bidaatig dadka quraanka markay akhrinayaan cid kale ka fakaraan cid kale ka fakareen adigun baa ilaahay la hadlaya qof walba gaarkiisa loola hadlaya waxyaabaha bishatan oo aad ka qaban jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam ummadda muslimiinta oo faray waxaa ka mid ah qiyaamu leylka taraawiixda salaada badan ee la tukanayo inaad salaadaha badsato waxyaabaha la isfaray waxaa ka mid ah bishatan aadka loogu dadaalayo oo nabigu samayn jiray atasadduq sadaqaadka inaynu inagu wax cunaabaynu badina inaynu dadka wax cunsiino sidaa awgeed ayuu saxaabigii muxuu lahaa nabigu wuxuu ahaa mid deeq badan dee asliyan baa nabiga caadadiisa waxayd weligii wax la weydiiyey maya ma odhan aduu bal qiyaas qof wax la weydiiyey aan maya odhanin haddana isagoo sidaas noloshiisu ahayd ayaa la yidhi haddana ramadaan wa kaana ajwad mima yakuun wuxuu ahaan jiray fii ramadaan bisha ramadaan wuu ka deeq badnaa bilaha kaloo dhan baa la yidhahdaa intuu bishaa bixiyo way ka gadisnay waxbixintiisu ka riixil mursala bay ahayd buu xadiidku tilmaamaya sidii dabayl dhabanaysa dabayl babanaysa ama dhabanaysa ayuu la mid ahaa yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam gacantiisu way furray bishatani waa bil markaa dadka muslimiinta ee takaaful ijtimaaci isu naxariistaan faqorada wax la siiyo masaakiinta wax la siiyo qaraabada la xidhiidhiyo tolka la xidhiidhiyo cid walba wax la siiyo waxyaabuu nebigu bishan samayn jiray waxaa ka mid ah iyadoo cibaadadiisu ay saa u badanto haddana bisha qayb ka mid ah dunidaba ka sii go'i jiray marka horeba bisha cibaada lagu jiray haddana qayb kaloo bishan ka mida buu ictikaaf wax la yidhaahdo samayn jiray the last days baad ku jirtaa tobankaa maalmood ugu dambeeyana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu ictikaafi jiray marka ictikaafku macnaheedu waa maxay xaaraan iyo baabkaa ka kaalaya mubaaxaadkii iyo xalaashii buu ka tegayay xataa xalaal ajar looga qorayuu ka tegay oo ajar ka weyn uu raadinayay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay ninku gabadhiisa markuu u tago hadduu xalaal ugu tago ajar baa loo qoraa siduu xadiidka nebigu sheegay laakiin tobankan maalmooda dambe maca dumarka waa laga fogaanaya walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajid baa ilaah yidhi haweenkana ha la dhaqmina idinkoo ictikaafsan baa la yidhi idan tobankan maalmood calaa'iqu dunya kullaha buu jaraya wuxuu u fasax qaadanayaa
inuu umuurta aakhiro oo qura bisha ka shaqeeyo inuu 10 kan maalmood umuurta aakhiro oo qura uu ka shaqeeyo waxyaabaha bishan ku badnaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah ducaa ilaahay baryadiisa walidaalika baa aayadda ducada ugu khaasaysan waxay ku soo aroortay maxay fii wasati aayaati sawm وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليؤمنوا بي آيات كاسي كدبا ولا تباشرهن وأنت آيات قدام بيع اعتكاف كي كور رميا صومك آيات كي صومك كلنا وكور ريا إذا وحي دحدا وجرتا محي وحي دحدا وجرتا رمضانك ولذلك العلماء وحي هذا وأسطان تلماميسا خصوصية أي دعوة بريدة إلهي لدي بشن قدهيدا دبا أيها الأحبة إلهي وحين لي وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون كوي عذر ذاك اللسيي أيها هدنا وحل ليلي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين مركي ليلي أيها هدنا وحل وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون أدقى عذر ذار هيستهدنا وحل ليلي وأن تصوموا صومك إذن خير بدن هذا وح قرانيسان با إلهينا ليه سبحانه وتعالى هذا وح قرانيسان ودبا أيها الأحبة وركي وحكو كوبية بشة صوصعة إن شاء الله تعالى ديار قروغي إنه هالنقض السيدة إنه إلهي يقول نقول لهين ربي يقول حلمي لهين آخرة يقول نقول لهين تارجت كينا وقوين يسينو عذاب كيدا وقبت بادي لهين جنة إلهي ويديسان لهين وقيل لهين بشتاني مركا هالنقطة دال بدني وينو كان مغضى أو فإذا فرغت فانصب إلهي طاعتي سي عبادتي سيني نكود داله بالكسلام نما بدني نغا مغطي ليزنس بلا نقاطنا معها بلدتكو عاجس وان صومان قفل بيدا نفتك سي بعضو بلا دوبا هانتي وطبابر باد قلي سايه كوب iyo 10 bilood oo dambaad u sii sahay qaadanaysa koob iyo 10 horena dambigooda iska maydhaysa waa bilaad u sii sahay qaadanayso afaaridii waaweyneed ee abaalisadii baa lagu soo deyn doonaa markay dhamaatay saad isaga celin lahayd hadda training ugu sii jirta ibliisaan oo dib kuugu duufsan lahayn iyo kooxdiisi idan haddaad bisha lafteedii dayacanto dee waa wada dayacmaysaa saa awgeed buu nabigu wuxuu leeyahay من حرم خيرها فقد حرم أما وآمن لي جبريل له نكي رمضان صوغ شوف انسلخ وأيضا ماته ولم يغفر له ولي أفكا عيد هدر نبي محمد وآمين لي هاي إلهي وحن كبر يا سبحانه وتعالى أنت قاعد بشتا أصيبتك فأيديسته إلهي أقول دواتين ربنا غيره habeenkii ugu horeysay bishani ay bilalaysay waxau nabigeenu yiri calayhi salaatu wasalaam iclaan ayaa xagga ilaahay ka imanaya malag baa dhawaaqayo odhanaya yaa baaqi alkhayr aqbil warkii khayrka doonayo bishani waa bishii khayrka soo qaabil waa bishii khayrka weeyaan waa bishii naxariista weeyaan waa bishii dambi dhaafka weeyaan waa bishii naarka xoreynta weeyaan ملك باورنا يا باغي الخير أقبل في خيرك دون يوم بشني وبشي خيرك سوق قابل وسوق جيسو وعبادة إلهي سوق قابل وصلاة تراويح سوق قابل وقرآن كآخر سكيسة سوق قابل وكثرة الخير بشني وبشي خيرك أجرك بدن لقيه ليه سوق جيسو قوليه ملك سوق قابل ويا باغي الشر أقصر في ذنبك يا فجورك يا معصية يا حمانت كل رنا يا مروى البحق شرك ودك دق يوم بيشني بيشي إلهي العاسنا يا ذنبك اللي قنا يا ما هنا كجوك سبولية وكقعص وبيش النبيين عليه الصلاة والسلام ويري حدير رمضان ويمادو الباب الجنة أيا الله فرعان وفي رواية الباب الرحمة أيا الله فرعان ملائك الباب النار أنا والله حراب النبي عليه الصلاة والسلام مردة الشياطين والله حراب بن آدم وبشكل يا إلهي جل وعلا قرآنك وكل شيء مقعيك شهر رمضان وبش ما ركتان اللي يري وبش القرآن كنا أوسودقي
وبش كلية النبي إنه يري هبين كستو أو بشار رمضان كم إذا النبي يقول وحوا إلى هاي ليه هاي الضوء ونار تكحرين وبش كلية إلا شيء إن الباب الجنة الله فرو وبش كلية إلا شيء إن الباب النار هنا الله حلو فالتريه فضائل كيك بشار رمضان فضل إلى وبش كلية النبي يقول يري مردة الشياطين والله قحر بني هذا وبش أي كجرت هبينكي ويناء قرآن كإلهي وصيدا قاركم وأماني ويري إنا أنزلناه في ليلة القدر طبعا كان ضمان الله هنا قرسيه وبالآذو بركة سنة حرمة ديدا إلا السياء أيه متيسر أيه مضلتع بشعي الصوم جنة صومك وحو نبيك وكشيك فضائل كيس كذلك إنه يهي قاشان الصوم لي وأنا أجزي به إلهي نواكلها حديث القدسي صومك أنيقا أيا إسكالي أنيقا أنا أدوك كأبا المرين دول وبشأ النبي محمد عليه الصلاة والسلام ويري صائم كنتنا أفرين وحا أوليه دعاء الأقبل ومرك إعداد الله يسير عيش هذا فرق ودي أرجروبي سحلك دعاء والله أقبلايا بعيد هذا إلهي وشيء صومك وقاشان الصوم جنة نارتو قاشان كاغا نقونيا شهوات النفط أيو قاشان كاغا نقونيا معاصي أيو قاشان كاغا نقونيا حنونا دخترادو أي دوين كروايان أي بشر رمضان أي دويسا قال دختراد أي ورئيس أو هذا بشيء بعد وش غيرته واحد كورونا يعني بشهر رمضان بعد وش غيرنا nin doctor oo maalinka hadlaya ayaa yiri bishii caafimaadka timid bishii dadku ay bogsanayeen baa timid waayo baa lagu yiri wuxuu yiri bisha cid noo timaada uma aragnay dadka bukaanku way yaraadaan bishii caafimaadka waa bishii ilaahay tabaaraka wa tacaala loo dhawaanayo وبشي دم بدافك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بشا نك صومه النبي قوليه ما نك صو بشا كمدا نك صومه النبي قوليه ذنبك سيهرون والله دافيا من صام رمضان بشا رمضان نك صومه إيمانا إسقى إيمان له ويقين له وقرنا يا أمر كان يا أمر الله حقي سكيم دي احتسابنا ومعي أجرك يا ثوابك إلهي تبارك وتعالى كذل بايو إلهي كرجينا إنه إلهي كأبا المريو دنبيكي سي هراء ننوى لك دافع النبي عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه لك بشهر رمضان صلاة تراويح دا أكعب النبي عليه الصلاة والسلام سقوا إلهي كالصون إيمان قضى واحتسابا أجر يثوابنا إلهي كدل بايو إلهي كرجينا أجر وكسي عبادة سقنا دنبقي هري وقد عايو دنبا لقد دافاب النبي عليه الصلاة والسلام وابشأ النبي يقول عليه الصلاة والسلام هدي متكين وأفرايو تمرها كو أفرابو نبي تمر هدي تمر ويانا بيها عادها كو أفرابو رسولك شريعة الإسلام هو عجيب لبدانا الدواء كجرت أبو تمرتا محو النبي يقول تمرتا هو الرئيسي وحال عنتدى إلى هاي دولك أو كسو صار أوردن مد والب في تاميغا كجرتا هيا تمرتا أوردن إلى هاي كو أبو ريبا لي هيلبك في تاميغا كجرة تمرتا والله هلايا عانها في تاميغا كجرة تمرتا والله هلايا بريسك في تاميغا كجرة تمرتا والله هلايا وحلي وحر نباتات يا خضروات يا باركان نعم الى هاي بالادم كوسيي عنيا مد والبقارهان في تاميغا سيجاره يد لوو ابوري ايا الهي تو سو جمعيه با الهي تمرتا نو سو دخغلي تمرتو ونعمة المسلمين إلهي خاص كوغدغي وانا ذاتي المسلمين تو اي دين عالم كنا كو غارسيين اصحاب محمد صلى الله عليه واله وسلم ورضي الله عنهم اجمعين
markay risaalada muxamadiyada ay xambaarayeen adduunyada gaadhsiinayeen zaadkay isticmaalayaan wuxuu ahaa timir buu ahaa timir mana xumaato taariikhdeeduna ma dhacdo saalixiintu waxay odhan jireen aqalka timir aynan oolinna faqri baa aqalkaa yaalla markaa buu nebiguna leeyahay calayhi salaatu wasalaam ninkii soomayow haddaad soontid buu nebigu leeyahay kiina afuraya timir ha ku afuro hadduu timir waayana biyaha cad ha ku afuro biyaha cadna waa daahir buu nebigu yidhi oo micdada jidhkaaga jeermiskii ku hadhay oo dhan bay bannaanka u soo saarayaan bishani waa ilaahay ayaad ugu dhowaanaysaa qofka mu'minku ilaahay buu ugu dhowaanayaa dembi dhaaf buu ka helayaa naarta ilaahay kaaga xoraynaya darajaadkaaga kor loogugu qaadaya caafimaadka ayaa kuu siyaadaya waa bishii qur'aankuu soo degay weeyaan nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam jibriil calayhi salaam intuu u yimaado ayaa isagii jibriil bishaa ramadaan qur'aanka ay darsi jireen qur'aanka ayay akhrin jireen qur'aanka marka innakuna waxaa laynaga doonayaa inaan bishaa maalinteedana aan wakhtigeenna aan buuxinno oon cibaadada iyo salaada iyo qur'aanka iyo dikriga iyo daacadda ilaahay iyo mudaarasata alcilmi aan ku buuxinnaa laynaga rabaa habeenkiina salaataleyl iyo munaajaad iyo salaata taraawiix inaan wakhtigeenna ku buuxinnaa laynaga doonaya laba meeloodba shayddaankaa gala bay culimmadu yidhaahdeen wakhtiga madhanna shayddaanka ayaa dega aqalka madhanna shayddaanka ayaa dega marka qofka muslimkaa la dooni maayo wakhtigiisa inuu ka dhiga firaaq bal firaaqa wakhtigaaga ka ilaaliyo buuxi oo maxaan ku buuxinaynaa waxaan ku buuxinaynaa bishani maadaamay tahay bishii qur'aanku uu soo degay qur'aanka akhriskiisa ayaan badinaynaa maadaamuu nebigeennu calayhi salaatu wasalaam bishaa malakul jibriil intuu u yimaada qur'aanka ay wada darsi ay jireen innakuna bisha ramadaan waxaa la doonayaa qur'aanka inaan gelso ood ugu yaraan bal maalintii hal juz oo qur'aan aad akhridaa si bishaa ramadaan qur'aanka mar aad u khatimtaa haddaad saddex juz maalintii aad akhridana waxaad khatimaysaa 3 jeer baad qur'aanka khatimaysaa haddaad 5 juz aad akhrida qur'aanka maaragtaane maalin kastana 6 maalmood baad qur'aanka ku khatimaysaa oo laga yaabaa bishaa ramadaan inaad khatimto maaragtaane 6 jeer 7 jeer عثمان بن عفان رضي الله عنه يا أرجري هذه قلوبتين طاهر أي نقول لهينا قرآن كآخر سكيسة كما داشين بولد قرآن كآخر سكيسة كما داشين لذلك وحا سلف الصالح علماء أي شيء عن صحابة ما هنا ذكي كدم بي حتى تابعين تتابعوا تابعين إلى يومنا هذا تضوحى لهلا يا قرآن كماليتي مر ختمها يا قارقونا الله وجر بماليتي قرآن كختمان والله هلا إمام الشافعي رحمه الله يا لقى شيء إنه بشهر رمضان